Harqaboobe waa mid ka mid ah xarumihii tababarka ciidamada dawladda dhexe. Muddo sanado ah ka hor is-oggolaanshihii qaybaha Galmudug fursad uma helin tababar ciidan oo badi deegaanada Soomaalida ka kooban. Waxay fursadu siisay dadaal dheer kadib dawladda uu hadda hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre. Madaxda dalka ayaa dhabarka u ritay mas'uuliyadda ciidan isku dhaf ah waxayna noqonaysaa halkan iyo meelo kale oo dawlad goboleedka ka tirsan meesha kaliya ee ciidan wadajir ah ka howlgalaan laguna soo saaro kuwa cusub. Booqashadiisa labaad ayay u ahayd gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute oo howlo isugu jira arrimo cadaaladeed iyo kuwa hagid sharciga ciidamada ah u jooga Galmudug. Waxaa ku weheliyay safarkan xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Cabdullaahi Buule Kamey qaybta 7aad ee maxkamadda iyo saraakiil kale. Gudoomiye Shuute ayaa u sheegay ciidamada halkan ku jira inay yihiin xalka argagixisada iyo isku dhaca qabiilada oo ay u maara waayeen siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee marba meel soo gaarsiiyay siyaasadda dalka. In halkan la kugu yimaado oo wafdi kala duwan oo xeerlaaliye guud iyo maxkamadii iyo saraakiisha amniga gobolkan ay idin yimaadaan waxay ka dhigan tahay in rajo weyn oo weyn la idinka qabo. baahi weyn la idin qabo. waxaad ogaataan maanta Soomaaliya baahida ay askari wanaagsan u qabto siyaasi wanaagsan uma qabto. bulshada baahida ay qabto asaasiga ah ay hadda taagan waxa cid xalli karto waxa way askari kaliya. askari leena ma ahay askari wanaagsan xalli karo. waxay bulshadu u baahan tahay in argagixisada laga difaaco laga celiyo. waxay bulshadu u baahan tahay kuwa aqliga la ee qabaa'ilka isku diriraya in laga kala qabto. waxay bulshadu u baahan tahay mooryaanta jidka taagan oo isbaarada dhiganaysa in laga qabto. intaasna siyaasi wanaagsan ma qaban karo askari wanaagsan qaban karo. waxaan kaloo ku kalsoonahay rajo weyn ka qabnaa baahi weyn u qabnaa in askarigii wanaagsanaa ee dalkan difaaci lahaa iyo mushkiladaha iyo dhibaatada oo ku jiro ka bixi lahaay inaa idinka naqataan askartaasi. waxaan aad iyo aad idinkugu bogaadinaynaa idina sheegaynaa ina raali leedinka yahay rajo weyn leedinka qabo baahi weyn leedin qabo. baahida leedin qabo maanta qofka loo qabo oo Soomaali jooga ma jiro. intii aan joognay xirada waxay indhahaygu qabteen farsamooyinka ciidamada sida habka weerarka, habka difaaca iyo habka furfuridda dhiman ee hubka. waana mid ka mid ah astaamaha dib u kabashada tiirka ugu xoogan ee dayrka oo ah dawladnimada. guud ahaan gobolka waxa uu ka caagan yahay ficilada argagixisada. waana mas'uuliyad ay dadka deegaanka wada leeyihiin sida ay inoo sheegeen mid kasta oo aan ku marnay inta u dhaxaysa gaalkacay iyo Guraceel. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, Guraceel.